Taliska saldhigga degmada Jowhar ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan aabbo wiilkiisa ku dilay deegaan hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waana dhacdo argagax ku reebtay shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar. Aabe Maxamed Daayow Aadan ayaa saxaafadda u sheegay ujeedada ka dambeysay dilka wiilkiisa Xasan Maxamed Daayow oo habeen ka hor uu ku tuuray webiga Shabeelle qaybta uu ka maro magaalada Jowhar. halay soo qabtay wiil aniga dhala oo cabtay noqdo halaysa oo beeraha anigana naftayda qalqil giri xoolaheedina laay 9 saacaad oo sacir ma yahay iga qashay muslimka diriska ahayna xoolihiisa laay sidii markasta wax ugu guday daali wax qarashkeeda wax dheefkeedina ku dhameey kale hadii dhahna kale xawaay oo cabtay oo qolada xashiishka cabti noqday oo faanol xaafadda faanol waa taqaanahay xaafadda faanol iyo bayaxaw labada meel bayaxaw faanol igidiyaan bas saddexda meel ka dalan doole jiray saddexda meel ka dalan doole anjax 4 bilood iyo 20 caw ninkaas walaalkay oo anjaxa u keenay ninkaana maar u laahda 4 bilood iyo 20 caw ahay waa October-kii la soo day ku yimid waa la soo day meeshiisa ka bilowday hadana adiga ku dhaafi ma dhar dhaafi ma hayehe xoolo dhaafi ma xoolaheedu waa layba tolki kala dhaafi ma abaal dhaafi ma waxa dhaafay xoolo nool dhaafi ma ri u saarsan inta la keenay anjaxa suuq xoolo lagu soo qabtay inta la keenay muslimkii oo dhan ay la hura lugta marsi iyo macal xoolaheedu 20 jir waa nin garabka ku qaada waa anjaxa nimankan ay yaqaan كله نكتع فالكاس أنا مركب فالكاس حماه راح قبصدي واحد حري ووجا كحري أقدر ووجا كتور dhinaca kale taliyaha saldhigga degmada Jowhar Dhamme Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa ka warbixiyay qaabka ay gacanta ugu soo dhigeen aabahan wiilkiisa ku dilay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. maanta shirkana darayd wuxuu ku saabsan yahay dhacdo ka dhacday 29 bishii 8 waxa dhacda xanuun badan oo aad looga argagax ka dhacday degmada Jowhar gaar ahaan tuulada Benemasando oo magaalada jirto ilaa 7 kiiloomitir waxa dhacday aabba ayaa wiilkiisa dilay wuxuuna u adeegsaday webiga waa qabtay waa xirxiriyay webigu ku xirxiriyay marka saadarteed waa dhibaato ka dhacday magaaladan ilaahay waxaan ka bareenaa inaynu soo noqon hadda kor hore u dhacday marka yaani waa dhacda laga argagaxo waxa la yiraahdaa marxuumka magaciisa waxa la yiraahdaa Xasan Maxamed Daayow waxaana dilay aabihiis Maxamed Daayow Aadan marka saadarteed maanta shirkada jira halkaas uu ku saabsan yahay ciidamada booliisku waa dadaaleen habeenkii adiga xilli dambana la soo wargelisay habeenimo waa dhaqaaqnay muddo ka bacdi ninku waa baxsay wuxuu aaday beeraha soo baxsay dhinaca sar la socotaan waa dhulka dhul beeraley waa magaalo maaragtay oo beer ay ku wareersan yihiin xilliga badarka uu baxay lagu jira beer uu dhaxgaliyay adiga ilaahay qadartiis dadka shacabka la shaqeeyay waxayna siiyeen fursad meel ka soo istaaga waa la soo wacay waxaana la meel hablo maru haya waa ka daba tagnay mootoon oo qaadana gaadiidka booliiska ma adeegsan waxaanu adeegsanay qaab farsamaysan oo yaani qarsoon waa ilaahay markiis waa ku guuleysnay waa soo qabanay haddana ciidamada booliiska ayaa gacanta ku haya saxaafadana waa la hadal siinay oo yaani maaragtay wixii uu dhacday qaabka u dhacday iyo sida uu sheegay yaani maaragtay uu dhibkii uu geystay iyo kulli waa cadeeyay marka saadarteed ninkaas uu xiran yahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa in yaani maaragtay dhibkiiskaas oo kiis ka dhacay Jowhar lana soo qabtay oo u baahay oo yahay garsugi wuxuu yahay garsugaas waxaan geey doonaa hadoo la yiraahdo insha Allah cid ay khusayso sida maxkamadaha dhacdadan ayaa mid aan ku cusbeen magaalada Jowhar sanad ka hor aabe ayaa sidan oo kale waxa uu wiilkiisa ku gooracay magaalada Jowhar Mahad Axmed Cali Sow warbaahinta goobjoog magaalada Jowhar.